waxaan rabaa caawa halka inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed ba u sheego inaan u taaganahay qabashada xilka dawladda federaalka Soomaaliya shaqadaas muddada 3 sano aan soo waday aniga iyo asxaabtayda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee wanaaga jecel waxaan rajaynayaa in ay miro dhasho waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan musharaxiinta madaxweynaha u sharaxan ee heer federaal inay ku mudoobaan in maamulka hadda jira la bedelo hadafka u weyn oo aan leenahay waxa weeye inuusan sii joogi karin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka oo aysan adag tahay in dalkan uu hore u sii socdo hadafka koowaad oo aan leeyahay waa kaas waxaan rabaa inaan kala shaqeeyo cid kastoo hadafkaas leh waxaa insha Allah rajaynayaa maalmaha soo socda shaqooyinka arrimaha ku aadan inaan dardargelintooda ay arki doontaan oo aan muujin doono aniga iyo dadka reer Puntland oo ugu horeeyaan xildhibaanada labada aqal iyo kuwa isteediyada kaleeto iyo dadka Soomaaliyeed dhamaantoodba waxaan rajaynayaa inaan ka wada qayb qaadano isbedel muuqda oo ku dhisan nidaam dimuqraadi ah nidaam horumarka u shaqeynaya nidaam wanaaga iyo jacaylka abuuraya nidaam turxaan bixinaya khilaafaadka dadka kala dheeraanshahana iyo bulshada dhexdeeda ilaalinaya inuu mar walba isku soo dhaweeyo runtii mabda bay iga tahay hanaanka dawladda hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku waday dalka inuusan ku sii soconayn oo in laga bedelo ay waajib tahay cid kasta oo mabaadiidaas lana waa dad aan saaxiib ku noqon karno siyaasadda dabcan tartan baa jiri doona waxaan rajaynayaa cid khayr qabta oo dhammaan musharaxiinta u tartamaysa si midaysan inay uga shaqeeyaan inuu tartan hufan oo degan oo xalaala inuu dhaco cid kasta oo aan isaga ahayn ku soo baxdana gacan lagu siiyo sidii horumar loo sameeyay maxaa yeelay isku dayga inuu kursiga sii fadhiyo hadda uu joogo iyo isku dayga inuu intuu dadka siro mar labaad uu dib ugu soo noqon rabo labadaba waa dhaawac weyn waxay ku tahay Soomaaliya deganaanshaheeda iyo midnimadeeda marka arrintaas waxaan rabaa xildhibaanada cusub ee Soomaaliyeed meel kasta ka soo baxay inay aad ugu baraarugsanaadaan halkaan ayaan caawa campaignkayga ka bilaabay wax badan oo qarin jireen horaan u sii sheegi doonaa hadda kadib waqtigeeda aad baan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh